waxaan galabtay shirkeygan jaraa'id ku saabsan yahay xaaladaha ka jira Soomaaliya maantay waqtigan kala guurka oo dadka qofba si uu arko magacaygu waa Jaamac Ciise Xirsi waxaan ahay nabadoon ka mid ah nabadoonnada Soomaaliya gaar ahaan kuwa Puntland gobolka Mudug degmada Jariiban waxaan ku sugnahay deegaan xeebeedka Garacad waxaan rabaa inaan taabto waxa maanta ka socda wadanka Soomaaliya waxa ka socdaan rabaa inaan waxyaabo ka yiraahdo qodobka iigu horeeya waxaan maqlaynaa in Soomaaliya doorashadeedii wax yar ay ka harsan yihiin xaaladeeduna ay marayso doorasho aan la isla ogolayn horta waxaan ugu baaqaynaa madaxda Soomaaliya heer federaal iyo heer dowlad goboleed in la isuna tanaasulo waxa la isla ogol yahay baana dadka anfaca waxa la isla ogol yahay oo heshiis lagu yahay oo wada ogol ah in wax lagu wado baan horta u soo jeedinayaa madaxda Soomaaliya meel kastoo ay joogaan inta markaan taa kaga tago waxaan maqlaynaa dad leh Soomaaliya waxa lagu celinayaa 91 lama rabo in laga daro dadka waaweyn waliba odayaasha sheeganaya siyaasiyiinta Soomaaliya in laga daro lama rabo 91 qofna khayr kama helin waxay ahaydna waa la ogaa maantana waa la ladan yahay oo meel fiican baa la joogaa Soomaaliya ay maraysaa oo maantay waxa la rabaa oo la sugayay maantay meeshii la joogo in hore looga sii socdo dadka marka ayagoo oo laga yaabo dana khaas inay leeyihiin Soomaaliya leh waxay ku noqonaysaa meeshii ay ka soo guurtay waxaan leeyahay horta Soomaaliya u tura hadalkaasi hadal dad waaweyn ma ahan hadal odayaaleedna ma ahan hadal siyaasina ma ahan waa inaad dalka u turtaan habeen dhaweyd waxaan dhageysanayay niman waaweyn oo koonfurta Soomaaliya ka hadlaya oo leh Dani iyo Axmed Madoobe baa Soomaaliya caqabad ku ah arintaas wax laga xishoodaa jira Puntland markii haatan aan u soo gudbo Puntland waa dawlad 20 sano jirtay meesha hadda anagu aan joogno iyo meesha cirifka ugu shisheeya nabad iyo horumar baa ka socda meesha raggaas ay ka hadlayaana guriyaha gudahooda lagama soo bixi karo dadkuna in la xishoodaa la rabaa marka nin guri ku xiran oo aan xornimadiisa u hadli karin oo aan meesha uu ku jiro aan banaanka uga soo bixi karin dhowr kun oo kiiloomitir oo isku weerad oo nabadi ka jiro dawlad isteedi ay ka jirto inuu yiraahdo qofka madaxda ka aba caqabad ku ah Soomaaliya aad bay waxay u tahay nasiib darro aad bay nasiib darro u tahay ma waxa la rabaa in Soomaaliya oo dhan isku mid laga dhigo waxaan anagu u arkaynaa haddaan nahay odayaasha reer Puntland qof kale Puntland baa dib wada leh inuu yahay qof raba in Soomaaliya oo dhan la wareeriyo qof u guuri waayay Puntland barwaaqada ka jirta oo lagu soo qaxay oo haatan la wada joogo oo la wada leeyahay oo Soomaaliya oo dhan goortii qofba qof qashay oo qofba qof dilay ayada inta la isugu yimid Soomaaliya oo dhan ay ku badbaaday ninka maanta leh Puntland baa dib wada waxa weeye waa nin waxaan oran karaa waa qof shakhsi xaasada weeye qof xaasada weeye Puntland baa Soomaaliya ka degilaaday qof kale waa qof xaasada seebay uga degi weyday Soomaali kale oo la yimaado oo lagu nasto oo nidaam iyo kala dambeyn leh oo dawladnimo toos ka jiro Puntland baa jirta ninka marka la Puntland caqabad weeye waxaan leenahay Puntland caqabad ma ahan kumana qabato waxaan laga yaabaa iyada inaad ka tagtay inaad imaan doontidna waa u dhowday maxaa yeelay waa dal Soomaaliyeed waa dalkaagii ha oran hadalkaas waxaan maqlay kuwa leh qabaa'il ka hadlaya oo leh qabiilooyin isku qabiila baa labada maamul goboleed jooga dad leh anagu hadda iyaga kama aanaa maqal isku qabiil baana laakiin ragga nooca u hadlaya baan waxaanu ka maqlaynaa oo miidiyaha iyo meel walba la taagan yihiin beesha reer hebel iyo beenago beeshaas iyo anagoo saasi wax ma ogolin nimanka horjoog madaxda ka maamuladaas waxaanu ka maqlaa doorasho la isla ogol yahay iyo guddi la isla ogol yahay iyo dad la wada doortay iyo dad laga soo wada shaqeeyay iyo dad ummaddu ay ku kalsoon tahay dalka doorashadiisa ha hageen qabiil baan nahay iyo annaga reer hebel dad kuma lihin midna male ciday rabaan baa haadeen waxay leeyihiin dadka guddiga ah oo doorashooyinka hagaya ha noqdeen dad ummaddu ay u siman tahay sidaasaan annaguna ku taageeraynaa waxaanu taageeraynaa madaxweynaha iyaga waan taageeraynaa waxaan ku taageeraynaa go'aankiisa geesinimada leh madaxweynuhu waa madaxweynihii Puntland waxaan dareemaynaa inay jiraan dad Puntland gudaheeda ku nool
oo madaxweynaha caqabad u arka waxaanu leenahay dadkaas haddaad madaxweynaha caqabad u aragtaan ogaada Puntland baad caqabad u aragteen madaxweynuhu waa shakhsi 5 sano leeyahay 2 sano waa tagtay 3 baa u hartay qof kale ku fariisan doona asaguna xoog kuma qabsanay waa la doorto barlamaan la soo xulay oo la soo dhaariyay baa doortay sidii rabana ku keeneen qofkii marka Puntland u arkay inay tahay madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka iyo xukuumadda ogaada ma ahan Puntland waa dawlad weeye maalin bana nin baa kursiga jooga inaad qof adigu aad siyaasad isku haysaan nacaybkiisa iyo dalkuna waa kala weyn yihiin madaxweynuhu aad baan ugu mahadcelinayaa anigu shakhsi ahaan wax hadda gaarana ma nihin waxaan ugu mahadcelinayaa maamulka wanaagsan iyo qaabka uu u wajahay siyaasadda Puntland baan waxaan u aragnaa inay tahay mid siyaasadaha maanta jira door u ah maxaa yeelay reer Puntland shir weyn oo wada tashiga Puntland yiraahdo sameeyay ciidamadii baa la habeeyay maamulkii baa la habeeyay ummadii oo dhan baa isku qanacday xukuumadii baan dhibi ka jirin oo aan maamulba la isqabqabsanayn dadka mar kale caqabad weeye waxaan leenahay war dalkiina u tura bil saddex waxa la yiri reerana waa ka wadaa baa la yiri reeran kuma geyso nimanka uu hanqal taagaya meena wax kala dambeeyay ka jirin oo dawladda Puntland eedaynayo ogaada lama huraan waa uska jiidaal baa la yiri Puntland baa idinku dawladina markii la kala guuray oo Soomaaliya kala tagtay dawladdii dhexe la burbushay oo niba meel ka baxay meeshii la isugu yimid oo lagu barbaaray oo wax lagu bartay oo maanta ka maqan inay Soomaaliya midowda maahane aan jirin oo Soomaaliya maanta ayadu meesha salka u ah oo aad ka garan kartaan shirarkii lagu qaban jiray dawladaha dariska nala ah waxa lagu qabtay Garoowe ogaada waad ogtihiin shirkii Djibouti iyo Afrika lagu qaban jiray Soomaaliya waxa la yiri waxa lagu qaban karaa Garoowe barwaaqada Ilaahay baa nasiya alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan leeyahay war waxaan haysan Ilaahan ku mahadin anigu haatan meeshan galabta jooga dekad baa ka socotay weyn waad aragteen baan jeclaa dekadaas waxay ka mid tahay horumarada dawladda dekada dhisanaysa oo aeroboort dhisatay hay-adihii dawladda dhammaantood shaqaynayaan oo xukuumaddii iyo xildhibaanadii shaqaynayaan oo wax ka maqo garsoorkii shaqaynayo ninka meel aan waxba ka jirin raba inuu ku baabiyo ugu seeyaaleeyo ninkaas waxaan leenahay waa ku jeednaa waana iska ka dhicinaynaa ogaada ma ahan dalkaani dal ilaa ma ahan dal fawdaayo qof kasta wuxuu raba ka samayn kara ma ahan dad loo soo dhintay oo loo soo daalay oo loo soo baaba'ay weeye wiil raadinaya dibutaati ama agaasimo raadinaya ama raadinaya meel in shaqo laga siiyo waa ka weyntahay hawshu waa ka weynta dalkan odayaal dhaqan buu leeyahay xukuumad buu leeyahay dad isku tiirsan buu leeyahay cid aan ka yeelayno Puntland in loogu hanqal taago meel hadday runta gaadho aan waxba isku keenin kama aqbalayno hadalkayga waxaan ku soo gabagabaynayaa reer Puntland isku tashada haddiina isku tashan waa laydin talinaya hal lagu taliye haddii qof ka fiican iyo dal ka fiican iyo meel ka wanaagsan hadday ku taliso waa wax la garan karo nin aan waxba haysan iyo meel fawda inaad meel degan idinkoo jooga aad noo taliya tiraahdaan liidnimaday ka mid tahay dadku idinka inuu ku dadaal rabaa dadku idin fiirsanaya idinkana waxaan idin leeyahay waa meeshan ka lama huraan waa auska jiidaal lama huraan weeye mahmadaas waa ku celcelaya wax hadalkan lagu dheerna lagu celceshaa waa wax weyn xambaarsan markii la sheegay wax laga yaabo in la tahay wax macna lahayn waxa weeye lama huraanku waa Puntland qofna ma ahan madaxweynena ma ahan gudoomiye baarlamaanna ma ahan waa dal iyo dad weeye jira oo la yaqaan oo Soomaaliya badbaadiyay Soomaaliyada iyo maamul goboleedyada dalka maanta ka jira markii la burburay Soomaaliland halka istaagtay meesha Soomaaliya laga daba qabtay oo Soomaaliya laga badbaadiyay waa Puntland dadkii aan anagu xoolaha iyaga iyo maalka iyaga iyo ciidanka iyaga ku badbaadinay oo dawladda noqday oo haatan maamul la samaystay iyo dawladdii dhaxo anagu aanu doorka ugu weyn ku lahayn baana la ku soo jeediyo barwaaqadan la isku ogoleen waxaana la kula diray waa barwaaqada ogaada barwaaqada inaan la isku ogoleen barwaaqadiina xagsada idin leeyahay waxaad haysataan baa idin ku filan dad hadda aragtaan wixii lagu heshiiyey iyo heshiisyadii federalismkii la qaatay haddaad aragtaan dad u jajabanna hadda anagu Soomaali baan nahay waa raacayna laakiin hadday tahay gacanta ku marooqsi anagu gacan ku marooqsi ma gali karo xagala geel wax gunti la gashay ka weyn ninka anaga haatan noogu hanjabaya beesha caalamka hebel u yeerisiyo hebel keenaysa beesha caalamka aqli bay leedahay iyaduba beel caalamna anaga hadda wax noogama xirra waa u jeedaa meesha nabadu ka jidhay iyo meesha xasiloonidu ka jirto waxay noqonaysaa inaan Soomaaliya maanta meel aan Puntland ahayn oo maanta wax lagu qaban karo iyo shir lagu gali karo
iyo la isku halayn karo aan Puntland aysan jirin waxaana ku tusaysaa horumarka ka socda mar hore aan ka sheekeeyo waxaan idhi dawladda kada iyo aeroboorto caalami ah dhisanaysa in la yiraahdo fawday wadaan haday fawdo wadaan waxaan gaari lahaayeen hadalkayga waxaan ku soo ururinayaa reer Puntland dan hal lahayo oo dan Soomaaliya hal lahayo haddii dan Soomaaliya la waayo dan Puntland hal lahayo waliba waa ku celinaya waxaan leeyahay nin baa yiri baa la wiilashiisii maandhow dan hal lahayo dan reebel hal lahayo waxaan idin leeyahay walaalayaal dan hal lahayo dan Puntland hal lahayo Soomaaliya hadii la helayana waa u taaganaa hadii Allah iyo salaamu calaykum